example-ka koowaad waxaan kaga shaqaynaynaa transaction-ka George oo aynu doonayno in aynu ku diyaarino journal entry, ledger account, trial balance, income statement iyo balance sheet. Haddaba waxaynu ku bilaabi doonaa sida transaction-ka dhacay loo geliyo journal. Example-ka soo socda wuxuu ku odhanayaa George wuxuu bilaabay business 1 April 2009. Transaction-ka soo socda wuxuu ka mid yahay shaqadii uu qabtay labadii week ee ugu horeeyay. 1 April 2009 wuxuu investment gareeyay businesskiisii $50,000 isaga oo ku investment gareeyay. Haddaba si aynu journal garayno, waa maxay journal? Journalku waa hab lagu qoro bookkeeper-ku qoro si lagu update gareeyo si aynu debit iyo credit ugu balance garayno. 1 bishii April 2009 George wuxuu company-giisa amba businesskiisa ku investment gareeyay $50,000. Markaa waxaan oranaynaa waxaa kordhay cashkii banka inoo yaalay oo asset-keenii ka mid ahaa $50,000. Sidoo kale isaguna waxaa kordhay capital-keenii inoo yaalay oo ay ku kordheen $50,000 isaguna. Markaa asset marka laga hadlayo wuxuu ka kordhaa debitka. Marka capital laga hadlayana capitalku wuxuu ka kordhaa credit. Waa tahay aynu nimaadno transaction-ka labaad. Labadii bishii Afraad 2009 wuxuu soo iibsaday alaab qiimaheedu yahay $5,000 oo uu ku soo qaatay ama ahaan. Bal aynu eegno siday journalka ugu qormayso. Waxa inoo kordhay purchase oo expenses-ka ka mid ah oo $5,000 ah. Sidoo kale dhanka kalena waxa inooga kordhay payable oo ka mid ah liability-ga. isaguna sidoo kale waa $5,000. Expenses-ku wuxuu ka kordhaa debitka. Sidoo kale liability-gu wuxuu ka kordhaa credit-ka. Transaction-ka saddexaad, 3 bishii Afraad 2009 wuxuu iibiyey qayb ka mid ah alaabtii uu deynta ku soo qaatay oo qiimaheedu yahay $6,000 isaga oo lacag kaash ah ku iibiyey. Bal aynu eegno sida ay journalka ku noqonayso. Waxaa kordhay cash at bank oo sidaynu hore u soo sheegnay ka mid ah asset wuxuu la mid yahay $6,000. dhanka kalena waxaa ka kordhay sales oo income-ka ka mid ah oo isaguna sidoo kale $6,000 ah. Cashku wuxuu ka kordhaa debitka sidaynu hore u soo sheegnay. Income-kuna wuxuu ka kordhaa credit-ka. Transaction-ka afraad haddii aynu u nimaadno 4 bishii Afraad 2009 wuxuu qoray check siduu u bixiyo alaabtii uu ku soo qaatay deynta markii hore. Bal aynu eegno siduu journalku noqonayo. Waxaa yaraata payable oo ka mid ah liability-ga. Lacagtuna waa $5,000. Dhanka kale isaguna waxaa yaraaday cash at bank oo asset-ga ka mid ah. isaguna waa $5,000. Liability-gu waxay ka yaraataa debitka. Sidoo kale asset-gu wuxuu ka yaraadaa credit-ka. Transaction-ka shanaad, 5 bishii Afraad 2009 wuxuu bixiyey kiradii lagu lahaa April oo dhan $450 isagoo ku bixiyey amba u qoray check ahaan. Waa tan sida ay noqon doonto. waxaa batay rent expense-kii baa batay oo $450 ayaa la bixiyey. waxaa sidoo kale yaraaday cash at bank oo ka mid ah asset. waxaa ka baxay $450. expense-ku wuxuu ka bataa debit side-ka. cashkuna wuxuu ka yaraadaa credit side-ka. haddii aynu u nimaadno transaction-ka lixaad, 6 bishii Afraad 2009 wuxuu iibiyey qaybtii u harsanayd alaabtiisii u taalay store-ka oo qiyaasteedu qiimaheedu ahaa $6,000 isaga oo ku iibiyey deyn ahaan. journalka bal aynugu tagno siday noqonayso. iminka wuxuu iibiyey alaab laakiin lacag lama siin. customer-kii ayuu weli ku leeyahay. waxaa kordhay receivable-kii uu ku lahaa customer-ska iyadoo asset-ga ay u gelayso $6,000.
oo dollar. dhanka kale isaguna waxaa kordhay sales oo income ka mid ah soo galay isaguna waa 6,000 oo. assetku wuxuu ka kordhaa debit, sidoo kale income-kuna wuxuu ka kordhaa credit. haddii aynu nimaadno transactionka toddobadii bishii afraad 2009 wuxuu soo iibsaday alaab isagoo kusoo qaatay deyn ahaan qiimo alaabtuna uu yahay 7,000 oo dollar oo lagu leeyahay aanu bixin weli wax lacag ah. aynu joornaal garayno haddaba siday noqonayso. waxaa kordhay purchase expense oo ah 7,000. dhanka kalena waxaa ka kordhay payable oo ah hore aynu soo sheegnay liability-ga ka mid ah, isaguna waa 7,000 oo dollar. expense-ku wuxuu ka kordhaa debit side-ka, liability-guna waxay ka kordhaa credit side-ka. transactionka ugu dambeeya ee 8aad haddaynu nimaadno 8dii bishii afraad 2009 wuxuu soo iibsaday delivery van qiimihiisu yahay 7,000 oo dollar oo cash bixiyey. balaan joornaal garayno transactionka ugu dambeeyana waxaa inoo kordhay motor vehicles oo asset-ka inoo ah 7,000 oo dollar. dhanka kale waxay isaguna yaraaday cash at bank oo asset-ka isaguna inoo 7,000 oo dollar. asset-ku wuxuu ka kordhaa debit side, asset-ku wuxuu isaguna ka yaraadaa credit side.